discourse wada sheekaysi ama wada hadal in the name of Allah waxaan ku bilaabayaa magaca Eebe the most gracious naxariis gaar ah and the most merciful iyo mid guud ahaaneedba praise be to Almighty Allah waxaa mahadi iska leh Allah weyn praise be to Almighty Allah waxaa mahadi iska leh Ilaah weyn who kaasoo allowed me ii ogolaaday to breathe inaan neef qaato and speak hadlo I would like waxaan jeclaan lahay to thank inaan u mahadnaqo my English teacher macalinkayga Ingiriiska ah who kaasoo taught me ii baray this foreign language luqadan ajnabiga ah on the other hand dhanka kalene I am here waxaan halkan u joogaa to have a word with me inaan kula sheekaysto ama erey kula yeesho ama wada sheekaysi kula sameeyo so sidaa daraadeeda what do you want to focus on maxaad doonaysaa inaad diiradda saarto aan kugu soo celsho in the name of Allah waxaan ku bilaabayaa magaca Eebe the most gracious naxariis gaar ah and the most merciful iyo mid guud ahaaneedba praise be to Almighty Allah waxaa mahadi iska leh Allah weyn who kaasoo allowed me ii ogolaaday to breathe inaan neef qaato and speak aan hadlo breathe waxaa la neef qaadasho I would like waxaan jeclaan lahay to thank inaan u mahadnaqo my English teacher macalinkayga of Ingiriiska ama luqadda Ingiriiska who kaasoo taught me bare this foreign language luqadda ajnabiga ah on the other hand dhanka kalene I am here waxaan halkan u taaganahay to have a word with you inaan erey kula yeesho ama wada sheekaysi kula sameeyo soo sidaa daraadeeda what do you want maxaad doonaysaa to focus on inaad diiradda saarto qaybta kale aan gudubno B in my turn dhankayga let me ii ogolaaw greet inaan salaamo students ardayda and the teachers iyo macallimiinta I hail you waxaan idinku salaamayaa with a sacred Islamic greeting salaanta barakeysan ee islaamka may peace and Allah's blessings be upon you all nabadi yahay naxariista alle korkiina ahaatee ama assalaamu calaykum after that intaas ka bacdi I would prefer waxaan doorbidayaa to send a special thanks inaan mahad gaar ah u diro to my tutor macalinkayga qaaska ah who kaasoo made me easy to use inaan isticmaalo this foreign language luqadan ajnabiga ah all in all calaa kulli xaal ama gabagabadii ama guntii gunaanudkii I have more interesting topics waxaan hayaa ciwaano aad u xiiso leh which kuwaasoo can help us naga caawin kara to speak inaan hadalno and create aan abuurno new sentences jumlado cusub aan kugu soo celsho qaybtan B in my turn dhankaygana let me greet the students and teachers ani dhankaygana aan salaamo macallimiinta iyo ardayda I hail you waxaan idinku salaamayaa with a sacred Islamic greeting salaanta barakeysan ee islaamka may peace and Allah's blessings be upon you all nabadi iyo naxariista Eebe korkiina ahaatee dhammaantiin after that intaas ka bacdi I would prefer waxaan doorbidayaa to send inaan diro a special thanks mahad gaar ah to my tutor waxaan u dirayaa macalinkayga qaaska mahad gaar ayaan u dirayaa who kaasoo made me easy ii fududeeyey to use inaan isticmaalo this foreign language this foreign language luqadan ajnabiga ah all in all gabagabadii ama guntii kunaanudkii I have more interesting topics waxaan hayaa ciwaano aad u fara badan ama aad badan more interesting xiiso badan leh I have more interesting topics waxaan hayaa ciwaano xiiso badan leh interesting waa xiisayn ama xiiso badan wax xiiso leh which kaasoo can help us naga caawin kara to speak inaan hadalno and create aan abuurno new sentences jumlado cusub